السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة waxaad ku tilmaami kartaa kulan fadhi wada sheekaysi hadal ra'yi gudbin cabiritaan editing badan ma lahan editingka ahamiyad weyn ma siinayno xalaqadan waxaan ahamiyad siinaynaa kelmadda iyo ra'yiga aan soo gudbinayno waxaan ka hadlaynaa waxa Itoobiya ka socdo maxay muhiim u tahay in ka Soomaali ahaan meel walba oo adduunkan ka joogto inaad isha ku hayso lana socoto waxa Itoobiya ka socdo arrimo badan awgeed waxaan isha marinaynaa waxa ay Itoobiyaanku Soomaaliya ka sameeyeen 2007 ilaa 2009 iyo sida cajiibka ah ee aan horey loo arag mucjisada ah ee Muqdisho uga soo kabsatay burburinta ay burburiyeen xabashada laakiin wax yar isbuucan waxa dhacay saddex dhacdo cajiib ah saddex dhacdo oo waaweyn ayaa Itoobiya ka dhacay oo ilaa haddana socdo waliba maahan isbuucan waa maalmihii hore ee aan soo dhaafnay midka koobaad Tigreedu waagi hore waxay ka dagaalamayeen ama dagaalku haduu ahaa gobolka Tigreeda dagaalka hadda wuxuu ka socdaa gobolka Amxaarada loolanka hadda ciidanka Tigreega iyo ciidanka gobolka Amxaarada iyo kan federaaliga Itoobiya waa sidii Tigreega looga celin lahaa inay qabsadaan gobolka Amxaarada arrinka maanta halkaas oo maraya waliba daqiiqadan aan hadlayno waxay haystaan magaalooyin kamid ah gobolka Amxaarada muhiimadda ugu weyn hadda ciidanka gobolka Amxaarada iyo ciidanka federaaliga Itoobiya waa in Tigreeda ayna qabsanin goboladaas Amxaarada iyo gobollo kale oo hadda ciidanka federaaliga ah wuxuu dagaal uga jira gobolka Amxaarada sidoo kale dhacdooyinka dhacay isbuucan waxa kamid ah in duqeyn ay bilaabatay in ciidanka Itoobiya uu duqeynayo caasimadda Tigreeda Makalle طبعا log ahaan uma gali karo haddaad xasuusato loolankan markuu bilaabanay waxaan sheegnay waliba markii uu ciidanka federaaliga qabsaday gobolka Tigreeda oo dhan waxaan sheegnay ama aan qiyaasnay ayadoo la fiirinayo 30 sano ee ay Tigreeda hubka kaydinayeen Itoobiyana ay maamulayeen in arrinkan uu yahay yani dabin ciidanka federaaliga markuu galo gobolka kadib ay albaabada jaxiimada ku furi doonaan haddaad xasuusataan waana sida dhacday waatii markuu ciidanka federaaliga qabsaday kadibna ay Tigreeda dib u soo laabteen oo dhammaan magaalooyinka ay qabsadeen ama inta badan maxaa dhacay oo shay cajiib ah sidoo kale qodobka saddexaad dhacay waxa kamid ah joojinta qaramada midoobay duulimaadkii kaalmeynta ahaa kadib duqeyntan oo ciidanka federaaliga sameeynayo Soomaalida iyo Itoobiyaanka 2007 waa bilowgii 2007 waxaan ku sugnaa Muqdisho subax aan marayay deegaanka loo yaqaan ama goobta Balaxi xilligaas Itoobiyaanku waxay wadeen duqeyn bahalnimo ah waqtigaas xaafadaha shiir kale iyo ilaa xamar jadiid baarubax waxa ku hoobanayay yani madaafiic qofka bini aadamka halkaas joogo aqligiisa aan galaynin runtii waxa meesha ka baxay dabcan mashaacirta geerida in aad baqdo يعني Soomaalida dadka halkaas jooga xaalku wuxuu ahaa afki ayaa juuqda gabay aad ayaan u xasuustaa madaafiicda BM-ka waxay ku hoobanayeen xaafada guryaha dadka rayidka ay degan yihiin si cadowtinimo oo aanan horey loo arag runtii hadalka iga soo bixi waayay ani iyo waliba dadka ila socday hadalka ayaa naga soo bixi waxaan ku hadalna ma lahan kaliya waxaad yani niyad gelin ama aad tamanin imaanshiyaha maalin lala xisaabtami doono ma ahayn runtii wixii Muqdisho ka dhacay 2007 ilaa 2009 inta u dhaxaysay wax aqliga bini aadamka gali karo kaliya waxay la mid tahay waxyaabihii ka dhacay Grozny dagaaladii Grozny 95 ilaa 2002 Ruushka iyo wax iska caabinta Qawqaas Shishan ee dhaxmaray iyo Stalingrad waxay ahayd burburin aanan hore loo arag qabsashada Itoobiyaanka qabsadeen Muqdishona runtii waxay ahayd musiibo ugu weyn ummadan waxa laga yaabaa dad badan inay maanta qoslayaan oo iska iloobeen ma ogtahay in qabsashadii Itoobiyaanku ay qabsadeen Muqdisho ay ahayd mid kamid ah ama musiibada ugu weyn ee ay macquul ka tahay qof Soomaali inay soo marto taariikhda in Itoobiyaanka yani ilaa markii aniga ka shakhsi ahaan mar walba oo aan soo xasuus ama mar walba oo aan arko qof Itoobiyaan ah waxaan niyadeyda ku soo dhacay in taariikhdooda ay ku jirto ama taariikhda ay ku qoranayaan inay Muqdisho qabsadeen caasimadda Soomaaliya ay qabsadeen ummad 700 sano loolan kala dhaxeeyay waxaan xasuustaa waagaas in Itoobiyaanka jamaacad tabliiq ah oo masjid ku jirto iska tabliiq ah hadda ugu galeen ay dhamaantood gowraceen
waxay ahayd waxyaabaha bahalnimada ah ee Etoobiyaanka sameeyeen Soomaalida Etoobiyaanka yani waxa dhex yaalo wabiyo dhiig ah waxa dhex yaalo boholo dhiig ah walina heshiis ma dhex marin mana heshiinin Etoobiyaanka Soomaaliya hadda wada fariisteen wali heshiis ma dhex marin arrinka murugtal ayaa ah in daqiiqadan aan hadlayno ciidanka waxa sameeyay bahalnimada ay wali qayb ka mid ah Soomaaliya joogan in wali ciidanka saas ayada waxa soo isbedel Ethiopia ka dhaceen mala zanaawi oo halaagsamay tikreeda xukunkooda waayeen ay ilaa hadda ciidan Ethiopia dalka naga joogan arrinkan runtii wuxuu lid ku yahay Soomaalinimada yani waxyaabo waxa jira wax walba waxay leeyihiin wax buriyo caano hadii aad leen dhanaan ku dhibciso caanahaas way barxayaan wayna halaabayaan waxa jira waxyaabo Soomaalinimada barxay ka raali ahaanshiyaha aslan ka raali ahaanshiyaha ama aqbalida ama soo hogaaminta Ethiopian dhulka in lagu soo hogaamiyo yani waxay buriyaysaa aan dhahna Soomaalinimada sidaas darteed يعني هذا سي منطق وهذا الان قومي وهذا حتى wax kale markii laga soo tago in aad raali ka tahay maanta in ciidan Ethiopian ah ay Soomaaliya joogan ama maalin kamid aad raali ka ahayd ama aad maalmaha kamid ku soo hogaamisay waxay burinaysaa arrinkan inaad Soomaali tahay yani waxyaabaha muujinaya aslan waxyaabaha muujinaya inaad Soomaali tahay xadidayana waa inaad Ethiopia lid ku tahay arrinku wuxuu dhigmaa tusaale ahaan ka waran maanta hadii aan dhahno ciidamo Greek ah ciidamo Greega ayaa waxa la geyn Istanbul Ankara iyo Antalya Trabzon ayaa lagu faafin yani qofka Turkiga wuxuu leeyahay yani خلاص turkinimada aan sheeganaa maxay tahay dal yani kala diin cadaawadaasna kala dhaxaysa sidoo kale ciidan Hindiya maanta hadaan geeyna ka waran Peshawar hadaan geeyna Islamabad aan ku faafino Pakistan ama ciidan Pakistani aan Hindiya ku faafino macquul ma ahan qof Hindi hadaad sidaas ku dhahdana ciidan Pakistani ayaa lagu faafin gaar ahaan kuwa Hinduuska wuxuu ku leeyahay macquul ma ahan ama qof Pakistani hadii aad dhahdo ciidan Hinduus ayaa waxa la geyn in magaalooyinkeena si ay u ilaaliyaan wuxuu leeyahay wax kasto dhaco yani musiibo kasto dhaco ama wax kasto isu geysano macquul ma ahan in ciidan Hindi ay Islaamabad ku dhex lugayaan runtii waxyaabo waxa jiro aqal gal aanan ahayn ka soo kabashada Muqdisho runtii Muqdisho qofkii joogay 2000 aan dhahno 8 9 qofkii joogay ama ugu dambeysay afwan ee maanta ku laabta yani wuxuu u arkay shay mucjiso ah sababtoo ah magaalada yani waxaad ii kartaa kala bar way burburtay sidaas darteed in Muqdisho maanta ay sidaas tahay runtii waa shay mucjiso ah muujinayana in Soomaalidu ay nolosha ku dhagan yihiin in aan nolosha ku dhaganahay sidoo kale waxa jiro ama bariyii u dambeeyay in dhalinyaro Soomaaliyeed ka soo jeedo Soomaali galbeed ama gobolka Soomaalida ku tilmaan sida ayaga macnaha Etoobiyaanka u yaqaanaan in ay ka qayb qaadanayaan ama loo qaaday gobolka Tigreeda si ay uga qayb galaan dagaal ayna wax shaqo ku lahayn la naqata lahum wala jamal yani xaqiiqada ayaa ah in Soomaali ayaa tahay wax kasto dhaco inaadan Etoobiya noqonaynin hadii ninkii mala zanaawi adoonka oo ahaa oo maan hadda dad meel isugu keenay lagu celceliyay Ethiopian baana oo asaga xitaa naftirkiisa ogay inayna macquul ahayn yani si kasta oo Ethiopiankaas kugu xisaabiyaan inaad ayaga kamid tahay ama gobol federaali aad tahay laakiin yani waxyaabaha uu qofka aaminsan yahay iyo xaqiiqada sugan yani farq ayaa u dhaxeeyo tusaale ahaan dhamaanteen qof aanan aqoon wax waan ka aamini karnaa laakiin hadaba waxaas aan ka aaminsan xitaa hadaan naqaano ma ahan xaqiiqada sugan ee qofkan hadaba yani hadii aaminsan yihiin in dhulka Soomaaliyeed uu yahay qayb ayaga kamid ay aaminsan yihiin laakiin xaqiiqada sugan waxay leedahay in aan kala nahay Soomaali iyo Ethiopian loolankan uu yahay yani Tigreeda hadii maanta adkaadaan sidii ay kula dhaqmi jireen ayay kula dhaqmi labadaas ciidan dagaalamayo yani ciidamadan dagaalamay hadii noqdaan Tigree يا ciidanka Oromada federaaliga Abiy Ahmed iyo xitaa kuwa Amhaarada waxay ogyiin si walba oo aad yani gacan u siiso in aad tahay yani jism gariib aad tahay shay kale aadan ku xisaabsanayn dhulka Falastiin qayb waxa kamid lagu magacaabo Arab 48 waa dhulka ay qabsadeen Yahuudu 1948 waa ka hor inta Ingiriiska dhulka anagaan siinin Amhaarada xabashada una siinin haddaba ka hor ayay ahayd qabsashada dhulka Soomaaliyeed
sidaasoo tahay ilaa hadda yuhuuddu way ogyihiin wax walboo dhaco in laga soo bilaabo 48 dadka ku nool 1948 laga soo bilaabo ilaa hadda dadka ku nool dhulkaas ay haystaan in ayna yuhuud ahayn in ayna israa'iiliyiin ahayn way ogyihiin sababtoo sunnada kownkan ilaahay uu abuuray ayaa saas shucuub wa qabaa'il annaga waxaana shacab Soomaali shacab ayaanay Etoobiyaankan aqwaamtooda iyo qoomamkooda kala leeyihiin wax walboo dhaca si kasta u qabsadaan qofka Soomaaliga Etoobiyaan ma noqonayo wax kasta oo dhaco waxaan imaan doonto maalin arrinkan aan xaqiiqo u arki doono طبعا waan u aragnaa in dadka Soomaaliyeed ee dhulkaas xabashada ay haysta ku sugan dhulkanaga waan arrin xaqiiqo ah Tigreeda haddaan ku soo laabano 30 sano ee ay haysteen xukunka Etoobiya ay shucuubta kala duwan dulmaayeen intaas way ogaayeen طبعا dulmigooda inuuna sii socon karin sidaas darteed hub kaydin iyo wax samaysi yani ayay ku jireen waana mid maanta aan aragno in Abi Ahmed uu wixii qarka u saaran yahay in uu gobolka Amxaarada waayo nin ayaa laga hayaa ma jecli shamaatada macnaha in aan musiibo qof ku dhacday adii uu noqdo caruur ama dumar ama nooc wahaadaba in aan ku farxo yani wuxuu yiri raganimadayda ma muujinayso ama raganimadayda iima saamaxayso in aan ku farxo musiibo qof ku dhacday laakiin wuxuu yiri waxaan jeclahay oo aan la yaabaa siday maalmaha isu bedelayaan dumarkan hadda Tigreeda rafaadsan qahay banaanka fadhiyo dumarkaas nimankooda iyo caruurtaas aabayaashood waa kuwa shalay dhulkanaga gubayay ma dhahayno dumarkaas iyo caruurtaas waxa ku dhacay Tigreeda waan ku faraxsana ma dhahayno laakiin waxaan la yaabay in isbedelka maalmaha sida ay maalmaha isu bedeleen waxaan rajaynayaa yani mas'alada wacyiga iyo fahanka loolanada iyo waxyaabo badan in aan kor u qaadno intii aan ku mashquulsanaan lahayn yani loolanada cariiriga ah ee Soomaalida u dhaxeeya iyo waxyaabaha yani wax lagu qaslo loolanadaas yararka Soomaalida u dhaxeeya ina iska ilowno yani caalamka maanta waa aragnaa sida uu yahay mowduucan intaanu ku egahay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh